warbixintan waxaan ku eegi doonaa xaaladda iyo baahiyaha ka taagan degmada Awrbogays oo dhacda xadka gobolada Sool iyo Sanaag ee Somaliland taasi oo aan dhawaan booqasho ku tagnay isla markaasina ka diyaarinay warbixintan oo aan inta badan kaga hadli doono baahiyaha asaasiga ee ka taagan degmadaasi ka sokowna waxa intaasi u dheerin degmada Awrbogays ay ka taagan tahay xaalad abaareed oo daran taasi oo soo taagnay tan iyo intii abaartu ka jirtay dalka sidoo kalena waxa deegaanadaasi ka jira biyo la'aan baahsan inkastoo roobkii gugu ka daay inta badan dalka degmada Awrbogays iyo deegaanada ku dhow wali waxa ka taagan xaalad abaareed oo indhaha laga qarsan karin waxana odayaasha iyo waxgaradka deegaanada xukuumadda Somaliland iyo hay'adaha samafalka ku dhaleeleen inaanay wax taakula ah soo gaarsiin deegaanadaasi abaartu ku kaliyeysatay odayaashan iyo waxgaradkan ayaa sidoo kale dhaleelay qaar kamid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Sanaag kuwaas oo inta badan ay sheegeen in degmadaasi ay sarfeyn ka sameeyaan laakiin si aanay taakula gaarsiin iyagoo og xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanadaasi odayaashii degmada Awrbogaysed waa tii abaaro ay dhulka ka dhaceen dhulka badankiisii abaarihii way ka soo doogeen roobab baana helay halkan wali abaartii sidii baa loogu jiraa barroobina kuma tiixin biyo dhaamis baa dadku wali iska yahay ma haystaan foosto biyo ah dadku waxay ku iibsadaan badankoodu ma haystaan deegaankan deegaan ballaaran weeye magaalada ilaa 1,000 qoys ayaa gudaheeda ku jira oo ka kooban dadkii barakacaya waxaanu aragnay hay'adihii ka shaqeynayay wadanka oo aan maaragtay magaaladiina dhaafaya hareeraha iyaga tuulooyinka iyo magaalooyinka way ka shaqeeyaan hadday biyo tahay hadday raashin tahay hadday wixii kasta oo maaragtay adeegyadoodaas waa ka qabtaan halkan annaga waxay noogu yimaadaan sirfay bay noogu yimaadaan waa soo dhaweynaa hadhowna wax aan resulti ama wax natiija oo aanu ka helaa ma jirto marka maanta hay'adahaas iyo NGO-yadaas nimankaas noo yimaada waxa weeye waanu runtii arrinta ay nagu sameeyaan waanu ka xulnaa waxa kamid ah iyaduna hay'adda la yiraahdo NRC baa kamid ah waxa kale oo kamid ah hay'adaha ICRC baa kamid ah maxaan ku dhahdaa biyo dhaamsiga ka jira dhulka boodo waaweyn bay iibiyeen gudiga abaaruhu oo eelaf weyn iyo meelaha nagu dhow laascaanood iyo joogay hadda markii abaartii dhulkii ka baxday way xiraysteen sida aanu maqalay berberay geysteen annaga abaartii baa walina haysa in dhulka abaartu hayso biyo dhaamis ka jiro booyadaha la keeno bay ahayd hay'adaha waxaan ugu baaqaynaa inay dadka si casaalada oo insaaf ah ay ugu shaqeeyaan waxaan ku dhahay Somaliland baa tiin baa la leeyahay cod baa nalaga rabaa waxba nalaga doonayaa qaar baa maalin dhow imanaya Hargeysa ka imanayo ka adar wata dadka wax ay naga helayaan ma jirto hadaanay dadkaas abaartii wali ku hadhay oo maaragtay dhibaataysan ee mandaqada inta leega aanay waxba u qabin annagu waxa nalagu qadiyay Awrbogays iyo eeriyadeeda kulaalaheeda inta u dhow waxay tiri Somaliland annaga nama ogolo wax siin mayno waxaanu ku diidnay diyaanu garan maayo mana dilin mana colaadin hay'adahana mayaga nagu diray maxay noogu iman waa gaara abaartii deegaankan degmadana xukunto way ka jirtaa abaartii roobna ma helin barkadihii way ka maran yihiin baahiyaadkii kalena wuu ka jiraa haddii abaartu hore u jirto aanu ummadda la qabnay iyo haddii wax noo gaar yihiin oo haddeer ay jiraanna wax waxtara oo hay'adaha maxalliga iyo hay'adaha dawliga midna naga soo gaaray ma ay jirto meeshan waa nabadgeliyo ummadda iyo gudidii heer qaran ee abaaraha haddii tii hore la sameeyay ay tahay iyo hadday tahay haddeer la magacaabo ee soo kabashada midna cidina noogama iman waxtarna nagama soo gaadhin xukuumaddu dalkan iyadaa sheegata cod bay ka rabtaa waa deegaamada ay sheegato haddii ay ummadda baahideeda waxba ka qaban weydo dee waxay nooga baahan tahay ma jirto baan u aragnaa dhanka kalena waxgaradka iyo odayaasha degmada Awrbogays ee gobolka Sanaag waxay xukuumadda Somaliland dib u xasuusiyeen shirnabadeedkii halkaasi ka dhacay ee u dhaxeeyay beelaha deegaanadaasi iyo ballanqaadkii xukuumadda Somaliland oo ay sheegeen inaanay dhanka xukuumadda waxba ka fulin iyagoo soo jeediyeen haddii dhawaaqooda dhig jalaq looga siin waayo ay ka tashan doonaan ayahooda halkan waa meeshii shirweynihii Somaliland iyo Maxamuud Bari ay ka dhacday waa meeshii la yidhi waa la isu soo dhaweynayaayo محمود بريو وحتين معارض با سومالان كنتيني
soo dhawaada aanu heshiis kula galnay dawladda Soomaaliland waxaanu rabnay maadaama aanu heshiiskaa galnay inaanu wixii aanu ku ballanay iyo wax abaaruhu keenaan ba helno hay'adaha waxaanu u sheegnaa wixii loo sheegay waxaanu baleenahay war maamulada iyo guddigan abaaraha taakulaynta abaaraha iyo hay'adaha iyo miyay safkashadeeno cadaadiska dheeraadka heleen sarwaxay leenay baahida dadku qabo ee dhibka badan hanalaga soo gaadho Somaliland waxaanu ku kulannay Awrbogays wasiiradeeda uu hogaaminayo wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi waanu ballanay halka waxa ka soo qayb galay niman leeyahay Maxamuud Bari oo 25 caaqil baa ka soo qayb galay waxba aanu ku ballanay ballantaa waxba kama aanu hayno waxaanu leenahay dawladdu haddii ay ballantaa ka baxdayna ha naloo sheego haddaanay ka bixin waanu sugaynaa sida la sheegay abaartii baa weli ka taagan Awrbogays waa bahda saxaafadu way u jeedaa way ka sii duubaysaa abaarta meesha ka taagan waxaanu leenahay gurmad degdeg ah lala soo gaaro haddii la danaynayo shirkii ka dhacay Awrbogays iyo wixii laga heshiiyey gurmad degdeg ah la soo gaaro baan leedahay Cabdiraxmaan Axmed Ilsaris degmada Awrbogays ee koonfurta gobolka Sanaag.